halkani waa taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeennii wax weydiin ogaal ka sheegne qodobada wariyo wacalan idinka hayno carreedag waxa ugu dooroon danaakilada oo dhowr jiho saaka ka weerartay Soomaalida garbaciise dhaawaca iyo dhimashada qowsaar dad aan waxba galabsan ku warjaafay Mareykanka golaha Islaamka Itoobiya hoggaan cusub doortay iyo gudoomiyihii hore oo ku gacan saylay Raila Odinga oo isku wada in uu gugan mahoobiyo talada bidoodka Kenya xisbiyada mucaaradka Somaliland oo ka durantay madaxweyne Biix inuu korsado iyagana ka xidho ururada kilalka shanaad ee Soomaalida Itoobiya oo deegaamo gaar ah ka dhaariyay in wax baasiina la geeyo Iran oo dalka Greega ka qaaday talaabo lagu sheegay lugteedii tiimbaro dhayda ka cadeeyay in lagu biyo cabo 3 gu oo loogu cayuuqi doono xukuumadda kulmiye baarlamaanka Mareykan oo dawaada ku duugay xeer dhigaya iskaashiga Hargeysa iyo Washington madax dhaqameedka Habarawal oo ka qayliyahan jabaada Garxajis askartii Suudaan oo laga taagan yahay qiilana wiilana iyo Erdogan oo wali hangol laba faraan leh ku haya dadka soo qaxay Ruushka wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idin ay ku soo dhawaada barnaamijkeen meel caleen laho uu cirku helaa cuud lagu dhaqaa sidoo kale casrigan carreedag dhammaan sarif caan baxo carrigaba dhammaan u cajiibsan iyo rasmi bay bulshadu ku caloolsan tahay wararka dhiilada leh sidoo kale uu dhiigu daayo kana soo jirfanaya galbeedka gobolka City ee dhulka Soomaali galbeed ayaa sheegaya in danaakilada falka iyo sixirka sidata ay saaka hiirtii waa bari ku soo jarmaada guday dad maata ah oo aan hubaysnayn kuwaas oo ay ka soo weerartay dhowr jiho kalshinta warqabadka iyo kala meerista xogaha ee TAR TV oo toos ula xidhiidhay goobta dagaalku ka socdo ayaa waraysi la yeelatay dagaalyahamiinta beesha Ciise ee halkaasi iska caabinta adag kala hortagay canfarta inkastoo ay la dagaalamayaan ciidamada kirilka canfartu oo aanay labada dhinac isku taagiyo tukur ahayn waxay noo sheegeen in laga soo kubaareeyay deegaamada shaqale booda quudka diirane iyo waliba kurta geela muuse oo ay canfartu kaga soo qaaday weerarhankaag isla markaana ay kala hortageen marya calasta beesha Ciise iska caabin xoogan wararku waxay sheegayaan in meesha lagu dhigay garabka iyo carjowda isla markaana uu weli dagaalku ka durfaandhabayo tiyo aan birta la kala qaadin waxaa la sheegayaa in danaakiladu ay gurmadka soo laba dhigayso iyadoo wadata hubka garabka laga turo kaarayaasha gurguurta dayacanta iyo madaafiicda goobta iyaga oo garab iyo gaashaan ka helaya kirilka anfarta dhinaca kale dagaalyahamiinta xaqoodirirka ah ee beesha Ciise oo aan libiqsanayn sidoo kalena aan rasaasta ka gabanayn geeridana aan ka dhowrsanayn ayaan wax caawimo ah ka helin dhulka Soomaali galbeed waa hadday sahay tahay waa hadday rasaas tahay waa hadday rag tahay waa hadday biyo tahay iyo hadday baad tahayba in la wadi jirayba waxaa la sheegayaa in beesha Ciise halkaas ku weyday tol iyo ciirsi iyadoo Soomaalidu hortooda banaysay sidoo kalena aanay ka daba tegin kana warhaynba dhinaca kale danaakilada ayaa mahoobiday 150 ceelbiyood iyo inta badan webiga Hawaash halka ay godoomiyeen 5 magaalo oo ay ugu weyn yihiin deegaamada Cadayti iyo Garbaciise oo meydadkii la dhigayna loo diiday in la duugo ama la aaso ama la xabaalo waxaa la sheegayaa ujeedada ay canfartu u soo gashay dagaalka in ay tahay sidii ay Soomaalida uga tirtiri lahayd ama uga xaaqi lahayd dariiqa jidka madow ee isku xidha Djibouti iyo Itoobiya ugu dambeyntii dadka aanu la hadalay waxay noo sheegeen inaan baaqooda gaarsiino wixii Soomaali ab iyo isir iyo awow kule ee damuurkoodu nool yahay ama aanu dhiman sida kuwa ku eeganaya haadka iyo haanraawaha ka dhergaya canfarta dhinaca kale wararka ka imanaya galbeedka gobolka City waxay intaa ku darayaan in dad tiro badan oo qaxdhiisha ka soo dhigay ay soo gaadheen deegaanka dan la helay iyada oo nin magaciisa lagu sheegay Siciid Buux baarkana ka gooyay 80 gu kana mid ahaa dadkii ka soo qaxay uu gaajo iyo haraad iyo macaluul ugu dhintay meel 30 adhifoof u jirta deegaanka dan la helay halka ilmo yar uu isna raacay tiyo la yahay laba haween ah oo aan la ogeyn meel ay ku aayoodeen guntiga gabagabadii wararku waxay sheegayaan in 20 qof in ka badan iilka loo duway kuwaas oo u godgalay shuban iyo nafaqa darro halka tiro aan la ogeyn ay ka sii badan tahay wali waxaynu ku jirnaa wararka dalka Itoobiya gudoomiyihii wadaadada Islaamka ee dalka Itoobiya ayaa la sheegayaa in fadhi laga yeeshay isla markaana laga duldegay isagoo mahayamooga wararku waxay sheegayaan in xilkii laga qaaday madaxweynihii golaha Islaamka ee dalka Itoobiya muftiga la yiraahdo Xaaji Cumar madaxweynaha golaha Islaamka ee dalka Itoobiya oo intii qudhac jirayba wambarka ka dhoogaysna ayaa ku tilmaamay in meesha laga cayriyo hadal meel waayay wuxuu qaadacay natiijada ka soo baxday doorasho ka dhacday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya muftiga ayaa sheegay in khilaaf laga dhaxurinayo golaha Islaamka ee dalkaasi
taasoo ay wadaan buu yidhi qolyaha haysta diimaha kiristaanka iyo dowladda dhexe ee dalkaasi. wuxuu sheegay in laga raacay markii xukuumadda Itoobiya ka dalbaday in wax laga qabto amaaro ku xasuuqday deegaanka Gondar muslimiin halkaa ku dhaqan. wuxuu sheegay in amaarada oo garab ka helaysa dowladda Itoobiya ay burburisay masaajido sidoo kalena ay bililqaysatay daasadaas ay lahaayeen dad muslimiin oo waxba galabsan hase ahaatee lagu takoorayo milladda ay haystaan waa diinta islaamka. weli halkaad nagala socotaan waa Taar TV wararka ka soo habaya bariga dhexe ayaa shaacayana ka qaaday weerar rogaal celin oo ay sameeyeen ciidamada jamhuuriga kacaanka islaamiga ah ee Iiraan, kuwaasoo bitiyey inay gacanta ku dhigeen 2 markab oo gurgursha oo ay leedahay dowladda Giriigu. waxay sheegeen dowladda Iiraan inay qafaasheen 2 markab oo ay afka u saareen biyaha gacanka Faris maadaama ay ku soo xadgudbeen. waxay sheegeen inay 2 markab ay hadda gacanta ugu jiraan ayna muhoobiyeen casarliiqii shalayto. waxay sheegeen inay jiiteen ama la fogaadeen sidoo kalena ay la gurya tageen. waxay sheegeen inay daba socdeen aano iyo godob hore oo ay uga gashay dowladda Giriig oo nooceedu ahaa qabsashada markab aan waxba galabsan oo laga lahaa dalka Iiraan. waxay sheegeen in gardarrada iyo isyeelyaalku aan wanaagsanayn. waxay sheegtay inuu waxaasoo kala dhalo. waxay sheegtay inuu arrinku ku qatamo ninkii gebiyey ee yidhi inay godobi oof tahay ninkay ragis galeen baa og. waxay sheegtay Iiraan inay Israa'iil ka dambayso waxyaabaha uu ku socdo ama uu ku dhaqmayo dalka Giriigu. waxay sheegeen in lagu soo kordhay Giriiga sidoo kalena aanu ahayn sidiisii hore iyo si dhowtoona. waxay sheegtay Iiraan inuu Giriigu ku qaaday dagaal aanay ogeyn ama aanay filaynin ama aanay u fadhiin. waxay sheegeen in markii ay markabka qabsadeen Giriigu ay erga ugu tageen Giriiga hase yeeshee laga soo tigsiin waayey. waxay sheegeen inay cudur noolba ka gubeen. waxay sheegeen inuu dheg jala qusin waayey dalka Giriigu. waxay sheegtay Iiraan inaanay ahayn niman laga soo hoysto haddii laga soo hoystana lagala baryo. waxay sheegeen inuu Giriigu ka qoomamayn doono waxa xilka leh ee uu ku dhaqaaqay. waxay sheegtay Iiraan in godobta iyo dagaalka sida yar loo galo uu waxaa leeyahay. waxay sheegeen inaanay ku wanaagsanayn darasnimada iyo jaarnimada iyo wax wada lahaanshaha iyo weliba nabad ku wada noolaanshaha duulka carreedeg. ugu dambayntii waxay ku soo gebagabaysay hadalkeeda xukuumadda Ayatullah Cali Khamenei ka dhurluufooy. waxay sheegeen inay wixii dambana diyaar u yihiin waxay doontaba ha noqotee. iyaguna daawade waxaa maalintii shalay meel sarsar ah oo ku taala ceerka Hargeysa isa soo tubay oday dhaqameedyo uu hogaaminayay ama uu hor socday suldaanka guud ee beelaha Subeer wal Suldaan Xasan, Suldaan Cabdilaahi Suldaan Diiriye oo ay weheliyeen cuqaal iyo salaadiin kale. waxay ugu baaqeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi in haddii allihii alla yahay oo loo soomo ama loo salaado uu doorashada xilligeedii ku qabto si aan Hargeysana loogu gubin bay yidhaahdeen ama aanan dhasha afka ugu qaadan. waxay sheegeen in libaaxyadii garxajis ay halkan dhow ka qowdhabayaan ama ka adurdhabayaan ama dee ka dhibidlisanayaanba. waxay sheegeen inay dul qaateen nimankaasi oo ay hadda tahay muddo dhaafba. waxay sheegeen intaan dagaalba la gaadhin inay ka jiifi waayeen faanka iyo tookha. waxay sheegeen in habar jecladii mar wax ka waabin jirtana ayba iyagii dhex iyo wax ku wareegayaan. waxay sheegeen in xaaladdu hadda ku xun tahay. waxay sheegeen in iyagoo la yaabanaa caare uu nin qalaaf la dhahaa haddana halkan isu soo taagay oo jabhad ku dhawaaqay. waxay sheegeen waxoogaagii baadda ahaa ay naga qaadi jireen ay 1991 ugu dambaysay oo haddii iminka lacagtaasi baadda ah naloo sheegto aanay bixin karin laakiin ay fududahay inay wambarka kula itaalaan. waxay sheegeen in baaddaasi ay ku sinnayd ilaa iyo goortii Cabdigahaydh oo waagii ka gabyey waa kii yidhi bay yidhaahdeen nin qatani nin qada haysta waa inuu ka qaadaayo qasnadaha haraatiya wuxuunbaa ka soo qubane. mar kale waa kii lahaa bay dhaheen Cabdigahaydh waraabaha ciyaayow adaan ku warramayaaye waxba kuma wanaagsanid haddaad reer wardiiq tahaye weylahan magaalada intaad ku ag wareegayso waaxyaha nin weyn laga jaraad walaqsan doontaaye hawalwelin waxbaan kuu ogahay wiiggan dabadii. ugu dambayntii waxay sheegeen in Muuse Biixi looga fadhiyo si uu u badbaadiyo ooshiisa oo uu wambarka iskaga dego isagoo aan cid kale u danaynayn waa haddii dhego u daloolaan. waxayna hadalkooda ku soo afmeereen adna haysdirin annagana hana galaafan ee wambarka wareeji. ugu dambayntii daawade wararka ka soo baxaya magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa tibaaxaya in loo kordhin doono muddo 2 gu ah iyo weliba dayr madaxweyne Muuse Biixi. waxaa kaloo iyana la sheegay inaan isagoo keligii ah loo kordhin doonin laakiin loo kordhin doono iyagana qolyaha madaxtooyada iyo qolyaha golaha guurtida
oo midba midka kale ugu dhawaaqi doono waa sidii caadada ahaan jirtay gudoomiyaha ama gobernatooraha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo ka hadlayay madal Ilyartu isqabatay oo ay fadhiyeen bulshada rayidka ah ee reer Boorama ayaa ka sheegay in loo kordhiyay madaxweyne hore Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo weliba loo kordhiyay 2 goor wuxuu sheegay in mar kalena loo kordhiyay madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin wuxuu sheegay mar saddexaadna loo kordhiyay madaxweyne Axmed Siilaanyo wuxuu sheegay in Muuse Biixi Cabdina loo kordhin doono ilaa shirka Mugabyine wuxuu sheegay in ciddii dhibsanaysa ama doonaysa inay meesha ka taliyaan ay u hoggaansanaato dalka xeerarkiisa iyo qabatanadiisa iyo wixii la mid ah kalamu hadhina wuxuu sheegay inay haddaba iska sii muuqato ama loo gogol xaadhayo lana faambiyayo ama la falamagurayo sidii loogu diyaar garoobi lahaa 2 guuyo dayr loogu cayuuqo inta uu fadhiyayo madaxweynuhu tii hore la kordhiyay tii Cigaal baa la kordhiyay tii Riyaal la kordhiyay tii Sanaal la kordhiyay what's the difference tamuuse maxaa gooni ka dhigay nin waliba ku bushaarayso waa la kordhinaya waxba yeedna iswaalwaan isaguna maanta waxaa qolyaha wararka hanfiira u dibinjaaqay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxa uu biniixiyeen xisbiyada mucaaradka oo gabi ku ciirsan yahay ay u yimaadeen Muuse Biixi iyagoo garhka iyo gamadaba qabtay isla jeerkaasna ka duraantay inuu kororsado inta uu doono taa beddelkeedana uu ka joojiyo ururada siyaasadda ee uu ka dhigayo madaxa bannaan waxaa la leeyahay kulmiyow madaxweynow aduguna kororso annakana ururada magax been maaha khaatigeeday leedahay golaheeday leedahay ragga yidhi warka xigaynta inoo gudbino daawade intaa warranay waxaanu ku darna moogin wax weydiin ogaal ka sheegne waa Maxamed Aadan Dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante diinta barashadeeda iyo inaad qabatinto quraanka ee beesi ubadka lagugu barbaariyo iyagoo jooga guryahooda waxaad ka helaysaa Al-Haramayn Quraan Islamic Online xifdigii quraanka iyo barashada xakiimka iyo xasanaadka ducada iyo xadiisyada rasuulka iyo xisaabaadka dunida iyo xuquuqdii shareecada haddii xiisa ku galo xifdiyo caruuraha cidla laguma xoore Al-Haramayn ka xaadiri haddaad u goolmoon tahay barashada diinta garaadkaaga oo qabatiba quraanka luuqda suuradaha afka carabiga barashada axaadiista rasuulka iyo dhammaan cilmiga diinta ka baro adigoo baradaada jooga Al-Haramayn oo ku fududayn doonta dal iyo dibadba barashada diinteena suuban kala xiriir wixii faahfaahin aleynada shaashada kaaga muuqda Al-Haramayn Quraan Islamic Online